ciidamo u dirtay deegaano dhawaantan dagaaladu ka dhacay waxaa qodobkaasi il gaara ku hayay wariyahayaga Cabdiamiir Cabbaas online. Taliska hay'adda nabad sugidda Soomaaliya qaybta Galmudug ayaa waxay ciidamo fara badan u direen deegaanka Furentifoore ee waqooyiga gobolka Galgaduud ee xadka Itoobiya halkaas oo dagaal geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac sababay uu dhaxmaray laba maleeshiyo beeleed. Ciidamadan oo ka ambabaxay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa wax ay wataan gaadiidka dagaalka noocyadooda kala duwan waxaana la filayaa inay kala dhaxgalaan laba maleeshiyo beeleed ee dagaalamay. sidoo kale wararka laga helay ayaa wax ay sheegayaan in saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad ay tagi doonaan deegaanka Furentifoore si ay uga qayb qaataan joojinta iyo xalinta dagaalka ka dhacay. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaankii lagu dagaalamay ayaa wax ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana dagaalkii ugu dambeeyay ee dhacay ay ku geeriyoodeen in ka badan 15 ruux. Cabdi Cabbaas online radio wadani and TV.